Bismillah. Assalaamu calaykum. Waa idin salaamay. Salaan kadib, waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo cashar ku saabsan English conversation in the hospital. Wadahadal English ah kuna saabsan hospital ama sidii aad dhakhtar markaad booqanaysid aad kula hadli lahayd ama waxyaalaha aad kala kulmi lahayd ama waxyaalaha aad weydiin lahayd oo English ah ayaan ku bari doonaa. La socod wanaagsan. In the hospital, isbitaalka gudihiisa. Dialogue 1, casharka koowaad. Dhakhtarkii ayaa hadlaya. Wuxuu yidhi, bukaan ayaa u imaaday. Wuxuuna ku dhahay, come in, soo gal, and sit down, fadhiiso. What is the trouble? Maxay tahay dhibaatadu? Ama maxay tahay dhibka ku haysto? Bukaankii ayaa hadlay. Wuxuu ku yidhi, Doctor, waxaa i hayaa a bad cough, qufac xun, iyo a sore throat, cune xanuun. Dhakhtarkii ayaa hadlay. Su'aal weydiiyey. Wuxuu ku yidhi, do you have a fever? Qandho miyaad leedahay? Bukaankii ayaa jawaabay. Wuxuu ku yidhi, I don't know, ma garanayo, but laakiin waxaan dareemayaa trouble, dhib ama xanuun. Dhakhtarkii ayaa hadlay. Wuxuu ku yidhi, first, ugu horreyn, let me take your temperature, inaan cabbiro heerkulkaada ama qandhadaada inaan cabbiro. Bukaankii ayaa wuxuu dhahay, okay, waa yahay. Dhakhtarkii ayaa hadlay. Wuxuu yidhi, don't worry, ha walwalin, you are just having a bad cold. Hadda keliya waxaad leedahay hargab xun ama hadda waxaa ku hayo hargab xun. Go home to bed. Guriga aad. Sariirta aad. Micnaha guriga aad nasa camal waaye. Guriga aad, sariirta aad. And take one of these pills every 6 hours. And take qaado one of these pills, kaniimadan mid ka mid ah, every 6 hours, saacad kasta, 6 saac kasta hal xaba ka cun. Yacni guriga aad, kaniimadan qaado, 6 saac kastana hal xaba ka cun. You will be fine soon. Waad caafimaadi doontaa insha Allah. Okay, insha Allah kuma darsan, waa jeebkayga. Okay, bukaanka ayaa hadda wuxuu yidhi, I got it. Waan fahmay ama waan gartay. Thank you. Mahadsanid. Dhakhtarkii ayaa hadlay. Wuxuu ku yidhi, drink more water and get a good rest. Drink, cab, more water, biyo badan, and get, hel, a good rest, nasiino wanaagsan. Bukaankii ayaa hadlay. Wuxuu ku yidhi, I will, waan samayn doonaa. Thanks again. Mahadsanid mar kale. Lecture 2 ama Dialogue 2, wadahadalkeenii labaad. Hello, Doctor. Casharkii hospitaalka noo socda weli. Hello, Doctor. Waa sidee dhakhtar? Ama hello waa salaan la isticmaala inta badan. Nawadeey dhakhtar. What's wrong with you? Maxaa kaa qaldan ama maxaa kugu dhacayba? I have a package. Waxaa i haya dhabar xanuun. Bukaan ayaa dhahay. Dhakhtarkii ayaa hadlay. Wuxuu ku yidhi, do you often suffer from the package? Badanaa miyaad ka cabataa dhabar xanuunka? Ereyga suffer badanaa waay. Okay, cabasho maya, suffer cabasho, sorry. Often badanaa suffer waa cabasho, package waa dhabar xanuun. No, maya, I never had one before. Maya, ka hor maanan qabin. Hadda ka hor maanan qabin yacni. Dhakhtarkii ayaa hadlay. Wuxuu ku yidhi, how long does it last for? Imisa ama intee ayaa dareemaysay xanuunkan yacni. Bukaankii ayaa hadlay. Wuxuu ku yidhi, almost 4 days. Qiyaastii 4 maalmood. Dhakhtarkii ayaa hadlay. Wuxuu ku yidhi, let me see.
yacni ii ogolow inaan ku baaro oo kale. Dhakhtarkii wuu baaray kadib wuxuu ku yidhi well waa hagaag, go home and get some rest in bed. Go home aad guriga and get qaado some rest xoogoo nasiina in bed sariirta ku qaado. It's not a big deal, maahan wax aad u weyn, yacni dhabar xanuun ku hayo maahan wax aad u weyn, keliya nasiina u baahan tahay, nasiina qaado. Bukaankii ayaa hadlay wuxuu ku yidhi can you give me some medicine, ma i siin kartaa xoogoo daawo ah. It's really painful, xaqiiqdii way xanuun badan tahay, yacni dhabarka aad ayuu u xanuunayaa, dhakhtar ma i siin kartaa daawo, ayuu bukaanka yidhi. Dhakhtarkii ayaa hadlay wuxuu ku yidhi okay waa yahay, take one pills at a time and 3 times a day. Take qaado one pill hal kaniin at a time, waqtigiiba hal kaniin qaado, and 3 times a day, saddexdii waqtina cun. yacni kaniin ayuu dhibay, kaniinkanita waqtiga quraacda hal cun, waqtiga qadada hal cun, waqtiga cashada hal cun, 3 times a day. If you still feel bad in 4 days, come back again. If you still haddii weli feel aad dareemaysid bad xanuun ama bad xumaan oo kale, weli haddaad xanuunka dareemaysid in 4 days 4 maalmood, come back again, ugu soo laabo mar kale. Thank you, mahadsanid, bukaanka ayaa yidhi. Casharkeena halkaas ayuu ku egyahay, oo ku mahadsan tihiin la jaanqaadkiina, la socodkiina. Waxaynu balanaha casharkan casharka xigo. Wassalaamu calaykum.